amaha qofka aad la saaxiibayso haddii uu shan astaan aad ku aragto yani la saaxiib qofka. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريب. bismillaah, halka waxaan doonayaa inaan ka sheego astaamaha qofka aad la saaxiibayso haddii uu shan astaan aad ku aragto yani la saaxiib qofka oo ka dhiga walaal oo soo dhaweyso oo sirahaaga wax kasta u sheeg yani qofka nolosha la sheergaree. shantaa waxa weeye number 1 qofkani ilaahay muku xasuusinaya marka ugu horeysa, taas ugu muhiimsan. qof yani markasta adiga uu ku arko ilaahay ku xasuusinaya markaad aragtiin dikriga alle aad ka sheekaysanaysiin yani nimcooyinka alle ka sheekaysanaysiin. number 2 qofkan wixii uu leeyahay ficil ahaan muu leeyahay, ficil ahaan muu samaynayaa, taasaa muhiima. yani dadka badankoodu way hadlaan laakiin ficilkii baa ka maqan. ka ilaaha naga dhigo kuwii ficilka u samaynaya wax kasta. tan saddexaad yani qof xikmad ku siinaya ma yahay, cilmi kugu soo kordhinaya, maalin kasta update ku siinaya ma yahay, yani qof hadal micno la samaynayo ku hadlaya ma yahay, aan iska hadlayn qofkan. tan afraad yani tana ugu muhiimsan wayna adagta sida lagu helo adigoo qafladaysan ama adigoo hilmaamsan ama adigoo yani qalad ku jira kusoo qabanaya kaale kule yani ku dhahaya gaar kula baxaya kuu sheegaya qaladkii dib kuu soo celinaya. kan shanaad waa kan markii wanaagaaga iyo khayrkaaga arko maasha allah kugu sii farxaya ee ku dhahaya sii wad hore sii soco ku dhahaya. intaa qofka haddaad ka hesho waa adagtii sida lagu hele yani qofka soo qabso saaxiib ka dhigo insha allah.